السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وانا السلام داوديال اقيارتك وحنا جنرال كاغا اكاديمي وحنا السلام يا سلام كرشي لابتك سو غوداي كسو دوادا عوان كيني قويس هاغاكسني وقان هاغاكسن iyo buugana dhismaha qoyska iyo fiidiyogiisa lixaad fiidiyogan insha Allah sidan fiidiyowga horeba aan ku wadaarno aan uga hadli doonaa yaa dooranaysa group hor asxaabta cusub ee fiidiyo casharada aan ma fiidiyoshan hore wala socon waxaan ka hadlaynaa waa dhismaha qoyska ama buugga dhismaha qoyska oo runtii buug aad u weyn ah oo ugu talagalnay bulshada Soomaaliyeed inta doonaysa in akhrisato akhriska jecel sidoo kalena aan qaybo ka mid ah ciwaanadiisa iyo waxyaabaha muhiimka ah ku jira aan halkaan kula wadaago soo dhawaada mar kale waxaan ka soo hadalnay ciwaanadeennii hore ahaa ee la kuuro yahay astaamihii iyo qodobadii tusaalooyinka ku saabsan qodobadii adeegsanaysay ayaan ka soo hadalnay dabcan ciwaankan yaa dooranaysa guriga hor wax muddo hore aan uga soo hadalnay waxaadna moodaa ciwaankan laga fahmi karo qormooyinkii aan hore aan u sameynay balse waxaan doonaynaa waxaan ka iftiimino ugu horeyn waa inaad si xeel dheer aan uga fikirnaa cidda aan ku aaminin nolosheena sidaan hore usoo tilmaamayba waa muhiim inaad dadka ka aqoonsan kartid hagaha hogaamin doona noloshaada dambe si aad ugu guul dareysan hagaagsanaanta deganaanshaha gurigaaga hagaagsanaanta farxadaada korrimada caruurtaada iyo tarbiyada ubadkaaga qofka aad dooranaysid waxaa kaa caawin doona markastaba qodobadii dhaqamadii iyo astaamihii aad soo qoratay intii aad ku dhex jirtay la munaaqashoodka aad ku sameynaysay maskaxdaada ama daqiiqadihii iyo qodobadii iyo tallaabooyinkii hore aan soo sheegnay haddii aad qaaday dabcan waxaad haddii kaa caawin doono qodobadaas si aad u xulato qofka markaas aad doonayso qodobadii aad soo qoray si aadna weydiiso qofka aad ku tuhmaysay inaad ku aamini karto noloshaada balse ogow goorta aad ogaan kartid qofkaas inuu yahay qof noloshaada hogaamin kara waa marka aad weydiiso aadna u bandhigto qodobadii astaamihii aad degsatay aad wada fahantaan asaguna uu kuu soo bandhiga kuwii markaas asagana u degsaday oo uu doonayay inuu ka helo qofka nolosha uu la wadaagi doono markaad qodobadaas iyo astaamahaas iyo dhaqamadaas aad sheergaraysaan ee aad wixii aad anfici waayaan iska saartaan wixii aad anfacana aad wada qaadataan ee markaas nolosha ay tahay nolol stable ah hore u socon kartaan ayay soo baxaysaa markaad qodobadaas wadaagtaan inaad nolosha wadi kartaan na wadi karin inta kadib qofku haddii uu buuxiyo qodobadaadii oo idil ama intii ugu muhiimsanayd sidoo kale adiguna aad buuxiso qodobadiisii u degsanaay ama intii ugu muhiimsanaa waxaa idiin soo bixi doona markaas tub ah wada qaadis inaad ku samayn kartaan iyo inaad kala laaxsho samayn kartaan okay balaatan aan isla fiirino marka waan fiirino waxa uu islaamku ka yiri cidda la dooranayo arrimaha lagu xulanayo waxaan kala qaadaynaa laba qayb aan kala qaadaynaa rag iyo dumar ama gabar iyo wiil waxaan ku hormarnaa ragga sidaan ognahay wiilku waa hoggaanka koowaad ee guriga waana maamulka sare ee maamuli doona qoyska lagana doonaya inta ugu badan waxyaabaha duruuriga ah ee uu u baahan yahay qoysku sidaa darteed haweenku marka ay doonayaan ragga waa muhiim inay ka eegaan dhan walba sababtay u fiirinayaan waa inuu yahay mid ka soo bixi kara waxyaabaha lagama maarmaanka u ah dhismaha qoyska marka laga hadlayo doorashada ragga ee haweenku ay dooranayaan diintii waxayna amraysaa inaan ku doorano laba qodob waxaana laga fahmayaa xadiiskii nabigeena calayhi salaatu wasalaam uu yidhi haddii uu idiin yimaado midaad ku raali noqotaan akhlaaqdiisa iyo diintiisa u guuriya haddii kale fidnada ayaa badanaysa marka waxaan ku hormaraynaa labada qodob diinta ayaan ku hormaraynaa diintu waa waxa ugu muhiimsan ee lagu doorto qofka sida uu tilmaamayo suubanaha naxariistii nabadgelyo korkiisa ahaatee waayo si kasta uu u fiican yahay shakhsigu hadduusan diin lahayn inta kale waa wax aan sii jiraynin sidaa awgeed waa muhiim inaad ruux kastoo aad xulanayso marka horeba ka fiirisaa dhanka diinta maadaama ay tahay waxa lagu liibaanayo aakhiro iyo adduunba haddaba mararka qaar waxaa dhacda sida aan maanta u badannahay haweenkana Soomaaliyeed u badan yihiin ama gabdhaheena u badan yihiin waxaan inta badan maanta jecelnahay kuwa ka dheeraado ka tegay diinta xaggeeda ka dheeraaday oo ama asagoo muslim ah aan tukanin ama asagoo muslim ah u dhaqma sida u dhaqmaan dadyowga aan diinta islaamka haysan haddaba nolol kasta oo ku salaysan diin la-aan waxay ku dhammaataa guuldarro ayay ku dhammaataa waadna ogtihiin dhibaatooyinka ka haysta maanta wadamadii horumarsanaa ee quwadda lahaa taranka iyo soo saaridda ubadka
dhibaato weyn inay ka haysato maanta waa dareemaysaa. marka waxa ugu horeeya buddiga u ah ee aad ku dooranayso gabar yahay wiilka aad doonaysa aad rabto waa inuu diin leeyahay, diin wanaagsan waa inuu leeyahay, diin iyo caqiide habboon waa inuu leeyahay. si kastoo qofku u qiimo badan yahay, u qurux badan yahay, u quruxsan yahay, una dabcisan yahay, una wanaagsan yahay, haddii uusan diin lahayn qofku, nolosha qofkaas la dhistaa waxay ku dhammaan doontaa aakhirka mid aan wax haba yaraatee wanaaga ku dhammaana ay noqon doontaa, oo waxaa idiin soo bixi doona natiijo aan la mahadinaya idiin soo bixi doonta. maadaama diinta ay budligu tahay guurka, waxaa lagama maarmaana ruuxa adigu aa nolosha u dooranaysa doonaysa inuu kugu hogaamiyo mustaqbalkan fog ee aad doonaysa inaad kasoo saarto miraha iyo ubaxa anfici doona ummadda kaa dambaysa adiga iyo xitaa adigaba ku anfici doonta. waxaa muhiim inaad u doorto aabbo wanaagsan ee diintiisu tahay mid aada ugu dhegan u yahay. sabanka maanta aan joogno xaaladda way adag tahay, ma ahan xaalad fudud. waxaa lagu jiraa saban fitanka ay badan tahay, fitnadu ay badan tahay, ragga iyo dumarka lagu ammaano xumaanta ay sameeyaan ayaanu ku sugannahay. sidaa awgeed waxaa lagama maarmaana maanta inaad raadiso ruuxa diinta le inaad goobto, diin qofku inuu leeyahay. haddaba diin kaliya ma ku anfacaysaa? marka diin aan akhlaaq lahayn ma ku anfacaysaa? wiil masaajidka aadee santa salaad masaajidka ku xafida ee kitaabka akhrista balse aan akhlaaq wanaagsan lahayna ma ku anfacaya? wuxuu ka dhigayaa geed aan miro lahayn. balse haddii qofka diintiisu hagaagto waxay u badan tahay 90% in akhlaaqdiisu hagaagto. haddaba qodobka labaad ee uu amrayo suubanaha naxariista nabadgelyo korkiisa ahaatee inaan ku doorano ragga waa akhlaaqda wanaagsan ee aan dhammaanin ama isbedelin, aysana saameynin isbedelada waqtiga, lehna sharci adag ee dhowra. waxaa la helaa marka la helo diin wanaagsan ee islaamka. qofka leh akhlaaqda aan lahayn diinta, haddii ay timaado duruuf qalqal gelin karta noloshiisa, ma tixgeliyo akhlaaqdiisa. tusaale haddii aan ku siiyo, tusaalaha wax lagu fahmaya, samirku waa qeyb ka mid a akhlaaqda. qofka aan diinta lahayni markii noloshiisu qalqasho ee uu dareemo dhibaatooyin wuu isdilaa ama wuxuu sameeyaa falal diinta lidibka iyo noloshiisaba. waxay taasina daliil u tahay akhlaaqda aan diinta ku dheehnayni inay isbedesho mar walba. akhlaaqda aan diinta ku dheehnayn oon diintu xukumaynin waa mid isbedelkeedu ka yara degdeg badan yahay madda diinta ku dheehan tahay. xataa wuu ka degdeg badan yahay waxyaabaha kale qaar ee nolosha saameeya in qofka akhlaaqdiisu isbedesho markay duruuftiisu isbedesho. dabcan waad aragtay markay xumaani kugu timaado sometimes mararka qaar waad xanaaqdaa, dabcigaaga wuu isbedelaa, wuu xanaaqaa, waad xanaaqdaa, waad carabtaa, wax badan aad qaribta ayaana laga yaabaa markaas. haddaba akhlaaqdu waa mid aada isu bedesha. marka qofka diinta lihi haddii uu xanaaqo wuxuu ku dhuujinaya akhlaaqdiisa, diintiisa ku dhuujinaya, ku ilaalinaya. walkaadimiina alqayd, kuwa cararooda qaranaya alla waa kii qur-aankiisa ku tilmaamay. okay, iskan naxariistii nabadgelyo korkiisa ahaatee uu noo sheegay nabigeenu ee ahaa hadduu idin yimaado midaad ku qanacdaan diintiisa akhlaaqdiisa u guuriyo, haddii kale fidnada ayaa badanaysa. waa xadiis ereyadiisu ay kooban yihiin 2 sadar ama hal sadar hadduu ugu bata ah, balse micnaha ku dhex jira haddii buwaag laga qoro xataa u maleymaa in la dhammayn karayo. waxaana ku hoos jira dhammaan doorashadii iyo xulashadii lagu xulan lahaa ragga. waayo marka la yidhaahdo diin iyo akhlaaq waxaa soo hoosgelaya dhammaan wax kastoo wanaag sheegan karaya, waxaana meesha ka baxaya dhammaan wax kastoo xumaan sheegta. wax walba soo duuduub marka tirada qofkan diin iyo akhlaaq ayuu leeyahay, xumaan walba oo meeshaa soo geli karta way ka baxaysaa. wanaag oo dhanna intaas ayuu soo hoosgelayaa. haddaba akhlaaqda wanaagsan maxaa ka mid ah? akhlaaqda wanaagsan waxaa ka mid ah dulqaadka, inaad dulqaadato, inaad samirto, inaad dadka iska cafiso, inaad dadka isku dhacayo walaalaha aada wada heshiisiiso, heshiis aad dhex dhigto, inaad reebto munkarka iyo xumaha, inaad wanaagga dadka farto, hadalka wanaagsan iyo wixii la mid ah dhammaan waxay ka mid yihiin dabeecadaha wanaagsan ee qofka laga fiiriyo lagana eego. gabaray u hoyle ubadkaaga inta aadan guursan, waayo xilliga ay ugu baahida badan yihiin waa xilligan. una door abo wanaagsan, adiguna doora nin wanaagsan. weli waxaan ku jirnaa qodobkeennii ahaa yaa dooranaysaa guriga ka hor. haddaba halkan waxaan kaga soo baxnaa ragga iyo qaabka aad u dooran lahayd inaad diin iyo akhlaaq ku doorato ragga. waxyaabaha kale ragga lagu doorto
waxa kuu jaangoynaya diintii akhlaaqda way soo hosgelayaan dhammaantooda, laakiin waxaa si fiican kuugu bayaaminayaa muuqaalka ka horreeyay ee aan kaga hadalnay qodobada ay tahay qofkan inaad u sheegto ama su-aalaha ay tahay qofka inaad weydiido jawaabtooda inaad ka hesho. berri markii guriga la tagana isla warqadaas uu ku siiyay oo saxiixta inaad ku xukunto. haddaba aan soo gudubna gabadha oo warshadii soo saaraysa ubadka, waana ruuxii maamuli lahaa gudaha guriga. haddaba ragow, haddii aadan xulan gabar wanaagsan ma heli doontid guri wanaagsan. sidaa darteed waa muhiim inaad ka baaraan degto gabadha aad u dhibiso noloshaada ama aad u xulayso ubadkaaga. nabiga naxariis nabadgelyo korkiisa ahaatee wuxuu yidhi xadiis uu kooban yahay qoraalkiisu laakiin micnihiisu ballaaran yahay, oo ahaa haweenka ku guursada 4 arrimood: maalkeeda, nasabkeeda, quruxdeeda, diinteeda, oo u eelo mida diinta leh. islaamku wuxuu aad u ammaanay diinta, waayo wax walba oo diintu ay saldhig u tahay ma halaabaan. sidaa awgeed dhismaha qoyskaaga aad dhisaysid waa inaad saldhig uga dhigtaa diintaada macaan si aad uga fogaato burburka nolosha qoyskaaga. haddaba waxaan rabnaa inaan kala qaadna 4tii qodob uu sheegay suubanuhu naxariis nabadgelyo korkiisa ahaatee. waxaan ku hormaraynaa gabadha maalkeeda. maalka muxuu qiime leeyahay taraa? maxaase lagu dooranayaa haweenka? maantay haweenkeenu waxay fiiriyaan war ninku dabaqii daara ma leeyahay ama baasboor ma ka wataa wadamadaas ayaa la fiiriyaa. war akhlaaq ayaan baasboor iyo maal aan diin iyo akhlaaq mid lahayn waxba kuu tari maayo. waadna noolaan kartaa qof faqiir ee waxba aan haysan balse dabcigiisii akhlaaqdiisii diintiisu habboon tahay, balse lama noolaan kartid qof maal iyo adduun iyo hanti haysta balse dabci akhlaaq iyo diin midna aan lahayn. marka la leeyahay haweenka ku doorta maalkeeda ma ahan micnaheedu gabar kastee maal inaad ka guursato adigu oo maal unaad raadisa micnaheedu maaha. waxaad tu yuhuuda jirta tu hadee la ku roon yahay yacni kuwa diinta naga xarantaa jiro maal haysta, kuwa waxaa jira adiga naftaada u hagaagsanina maal haysta. balse waxaa lagala jeedaa gabar haddii 4 arrimoodba ay kulansato guursada. haddiise 4 ay kulansan weydo u iisho u leexda midda diinta la xaggeeda, tan diinta la goobo. 4 qodob haweenka ku guursada. haddii 4 qodob laga waayo midda diinta la raadsada, u iisho xaggeed ma diinta leh. 2 ka heshay, 1 baad ka heshay, halkaad ka helaysaa diinta ha ahaado. haddii Allah xataa laga marmaan noqonayso inaad qofkaas nolosha aad la wadaagto. haddii diintii laga waayo gabadha saddexdii kala way leedahay. maalkii way leedahay, qurux way leedahay, nasab fiican waa kasoo jeedaa, laakiin diin ma lahan. 3 kale wax qiimaha oo yarata ay sameynayaan ma jirto. wax qiimo ma sameynayaan. wuxuu micnaa ma yeelayaan nolosha soo socota. nolol diin la'aan ahi waa nolol aan jirin. dark life bay ku nool yihiin dadka aan nolol diinta haysanin, waayo maba ogaba waxay noloshooda ku sugan tahay. sidaan ognahay maalku waa wax ay si dabiici u jecel yihiin aadmigu, waana wax dhammaado waqtiga iyo duruufaha ay saameeyaan. waa wax dhammaan kara xilli walba baabi'i karaa. haddii marka xulashadooda ay ku salaysneed ay ahayd mid maal ku salaysan bas, nolosha qoyskaas dhismaya hadda aad yeelashay ama doonaysid inaad yeelashay wax ku dhammaan doontaa fashil iyaduna. waayo hogaankaaga dhan waa maal, hogaankaaga ma ahan dabci wanaagsan iyo akhlaaq wanaagsan. maalku nolosha muhiim buu yahay, ma aha wax la diidaya ama la nacaya ma aha. maalku qofku inuu maal leeyahay waa fiican tahay, faqrigana Allah ayaa laga magan galaa. balse faqiirka ayaa dhaama maalka midka haystay hantiilaha ah ee dabcigiisa akhlaaqdiisa aysan wanaagsaneyn ama diinta lahayn, ka ayaa dhaama. maalku waa harka labadiisa gelin. adduunyada marna waa la helaa waa la waayaa. kama imsaashaday milyaneereed oo maanta waxba aan hayn, adiga ku hadee la kuurey ka hoosay waxba haysan. kama imsaa hadda eber waxba haysanayo shalay ayaga eber adugeed maanta milyaneer ah. maalku waa wax iska fudud helitaankiisu, waayidiisu wax iska fudud weeyaan. laakiin diintu waayideedu wax fudud maaha, helideedu wax fudud maaha. akhlaaqdu waayideedu wax fudud maaha, diintu aan waayideedu wax fudud maaha, helideedu wax fudud maaha. waa wax qofka akhlaaq iyo diin iyo dabci wanaagsan isku darsadaa. run ahaantii waa wax wuxuu dheeriyay wax aan lagu koobi karin hadal iyo maqaal iyo muuqaal iyo qoraal intaba ayuu dheeriyay
midka hantida iyo maalka haysta marsi aan lahayn diinta iyo akhlaaqda toona qodobkeena labaad ee nasabku waa inay gabadha ka soo jeedaan reer la yaqaano oo wanaagsan kama hadlayna qabiilka sida dadka qaarkeen oo naga midihi ay u yaqaanaan oo waa kuwa yiraa qabiil hebel gabadhooda ama wiilashoodu lama guursado dad la arkaysa reer hebelniyo gabdhahoodii wiilashooda lama guursado waxaas waa baadil meel ay kaga sugan yihiin ma jirto dhaqanka wanaagsan iyo akhlaaqda suban iyo diinteena suban inta meel ay kaga sugan yihiin ma jirto qabiil la yiri yaan qablahooda la guursanin kaliya qofka muslimka waxa lagu xiray muslim yaa diin akhlaaqna uu leeyahay ayaa lagu xiray dhankii caadada aan leenahay waxaa ka mid ah marka qof wax xun uu sameeyo oo qof uu sameeyo wax qaldan uu sameeyo waxa dhammaan afka la mariyaa waxa afka la marshaa oo la wada caayaa qabiilka nasabkii abtigiiska qofkaasi uu leeyahay waxaana loo caayaa halkaa qof oo kaliya ayadoo la leeyahay reeba sidaas ay u xun yihiin run ahaantii waa dabciyaan sal iyo raadina lahayn waana wax aan ku habboonay dadnimada iyo diinta islaamka waana kii nooga digay nabigeena naxariista nabadgelyo korkiisa ahaatee oo yiri qofkii nasabka caaya qof nasabkii caaya waxa uu ku sugan yahay sidoo nabigu sheegay naxariista nabadgelyo korkiisa ahaatee diinka bax inuu ku sugan yahay abu muslim fisqun wa qitaalu kufrun ayaan filaya xadiiskan inuu ahaa eraydiis ama sidoo nabigu naxariista nabadgelyo korkiisa ahaatee uu yiri qofka in la caayana waa fisqi inaad dishaana waa gaalnimo muslimka ah oo aad muslimadiisa u dishaa haddaba qodobkani waa muhiim haddii gabadha ay ka soo jeedo nasab wanaagsan oo diin iyo akhlaaq leh iyaduna aysan diin lahayn waxba ma tarayo nasabka wanaagsan lagumana dooran karo nasabkaas gabadha marka aan leenahay aysan diin lahayn waxaa jira qof diin leh laakiin aan lahayn akhlaaq amaan ahaynba muslim qaalis ah oo aan laga nabadgelin afkiisa iyo adinkiisa haddaba waxay kuu taraysaa inaad soo guursato gabadha derisku ka sheeganayaan cidaha laynaysa wasaqda ku fogeynaysa deriska xumaynaysa kii ku yimaada xumaynaysa mid kale maalin kasta laga sheeganaya waxay kuu taraysaa waxba kuma tarayso qofka muslimka ah ee siduu nabiga noo sheegay naxariistii nabadgelyo korkiisa ahaatee waa kan laga nabadgalaa afkiisa iyo adinkiisa carabkaaga iyo adinkaaga gabadha qofka muslimka ah afkiisa iyo adinkiisa laga ammaan helo qof muslima ama ma ka soo qaad waa qof taariku salaad ah salaad ba isku laacimaya ninkii ama naagtii inaad doorataa waxaa xataa shaki ku jira inaad isku xirmayaan labada qofkaa taariku salaadka qofka kale muslimka ana ku xirmaya xataa oo guurkaas uu ansaxaya xataa ayadaa shaki ku jira taa marka waxaan kala jeednaa waa markaan leenahay qofku waa inuu aan lagu hodmin inuu diin leeyahay micnaheedu ma aha yani waxaan kala jeednaa qof walboo sheeganaya diin inuu leeyahay micnaheedu ma ahan qofkaas in la dooranayo akhlaaq la-aan in la iska dooranayo qofku diin hadduu leeyahay la qofkaan muslim yaa abihiis muslim waa qofkan muslim soo maaha bes hore hawsha laga kalto la dhamaynaya qofku inuu akhlaaq iyo background fiican leeyahay in background fiican lahayn ka war waa muslim laa ilaha illa allah maxamed rasuulullah uu leeyahay dadkana waa dila waana dhacaa bataarku salaad mana tukado salaad ma soomo ma salaado ma tukado dadka waa dhaca laa ilaha illa allah maxamed rasuulullah waa leeyahay haw marka sidee qofkaas ku dooranaysaa qodobkeena kale ayaan u gudbaynaa oo ah gabadha quruxdeeda in lagu doorto quruxdu waxay ka mid tahay waxyaabaha ay sida dabiiciga dadku u jecel yihiin waxayna leedahay soo jiidasho wanaagsan ayay leedahay sidaa awgeed way bannaan tahay inaad iska fiirisid gabadha ama ruuxa aad xulanaysid sida uu noo sheegaya naxariistii nabadgelyo korkiisa ahaatee nabigeena markuu ninkuu yidhi nabiga naxariistii nabadgelyo korkiisa ahaatee uu ku yidhi rasuulka allow inaan guursadaan rabaa nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ma iska fiirisay inaan guursadaan rabaa gabadha heblaah ama gabadha inaan guursadaan rabaa nabiga naxariistii nabadgelyo korkiisa ahaatee guurso ord ma dhihin wuxuu yidhi ma iska fiirisay ayuu yidhi marka inaad iska fiiridaa qofka aad guursanaysid sida uu yahay waa wax muhiima meesha ku jira quruxdu way isbedeshaa waxayna la socotaa cimriga qofka mar qofku da' gaaro waxaa dhammaanaya dhalaalkii qofka waxaana soo baxaya weji haryooba leh oo ay ka dhammaatay soo jiidashadii waxaase dhibaato ah inaad xulashadaada ku salaysid shay dhammaan doona adigoo hadafkaagu iyo mustaqbal ku salaysan nagaansho waana sababta keento kala xiisa go-a nolosha lamaanaha ilaan doorashadii quruxda kaliya ku salaysneed
way dhamaatay marka 40 sano u dhawaatay ama 30 sano aad gaartay qodobkeena ugu dambeeya gabadha diinteeda diintu wax aad u qiimo badan waana shayga kaliya ee suuragal tahay inaad qof kaliya ku doorato qof diin leh oo diinta uu kaligeedan qurux iyo dabci kala mid yahay baad iska dooran kartaa maxaa yeelay haddii xataa la isku dhaco diinta soo celinayso afisku wax ka yaqaan oo qof afiska yaqaan qof diin lehna aqlaqdiisa ku dhimata ama ku xumaata ay gibay meesha uga baxdaa waa wax boqolkiiba wax yar ah waayo qofka diinta leh way sahlan tahay inuu yeesho astaamo wanaagsan iyo dhaqamo aad u fiican ilaa diintu waxay reebaysaa wax kasta oo xun waxaana si fudud u dhici karta inuu yeesho qofku akhlaaq wanaagsan maadaama diinka reebaysa wax walba xun qofku diinna uu leeyahay hadda marka waxaan dhihi karnaa diintu ayada budhig ah wax walba inay hagaajido waana sax waana reeli diintu ma keento wax xun wax wanaagsan mooyaane waana lagu liibaanaa aqriya adduunba intaba qofka diintiisu wanaagsan tahay ku dheehan tahay cabsida alle waxa u siyaado qofka iimaanka akhlaaqda taasina waxay keensanaysaa in ay isbedesho nolosha qofkaasi dabcigiisii isbedelo haddii akhlaaq xun u lahaana isbedelo haddaba waxaa muhiim ah gabadh iyo wiilba ruuxa aad dooranaysid inaad marka horeba ka fiirisid dhanka diinta ee aadan ku mashquulin dhaalkiisa adduunyo oo kaliya ah sidaan ognahay Soomaalideena qabiil ayaa nala ku falay waxaan aaminsanahay gabadhu inay badiso reerka la yiraahdo gabadhu reerka ha badiso wax la yiraahdo haddaba xadiis nabiga laga wariyay culimadu waxay ku micneeyeen kuna fasireen inuu nabigu nooga digin naxariisina diil korkiisa aatay inaan guursano qaraabada dhow waxaana ka imaanaya arinta farxad darro sida culimadu ku fasireen waayo qaraabada dhow markaad guursato gabar in adeerta ama walaasha aad guursato oo gabadhu isku xumaataan waxaad isku xumaanaysaan cidii hooyadii iyo aabaha walaalka gabadha in adeerta la dhashay waad isku xumaanaysaan dhibaatadii gabadha soo kala gaartaa cidna way soo kala gaartaa waana hilib aan kala dhamaanay mar walba adinkoo hilib aan kala dhamaanna qaraabo ah ayaa xiriiriiskeeni kala furmaaya xiriiriisa waa kala furmaaya maxaa yeelay gabadhii markaad isku dhacdeen cidiina waa isku dhacdeen xiriirkii waa kala go'aya marka waana qaraabadii balse gabadha ka baxsan ee aan qaraabada ahayn wiil ka baxsan aan qaraabada ahayn maanta marka isku dhacdaan wadadaad kala maraysaan reerkaas waajib kuguma ahan adiga inaad xiriiriso waajib kuguma ahan inaad xiriiriso reerkaas aad raadiso marka waa wax aad muhiim ah marka inaad qof ooga ka durugsan aad guursataa wiilyow u helo ubadkaaga inta aadan guursan oo u dooro hooyo wanaagsan adiguna dooro gabar wanaagsan haddii aan soo barna doorashada waxa saameeya qaabka wax loo dooranayo cidii aan dooran lahaynba oo aan soo fahanay kana soo baaraan degnay kana soo fikirnay si qoto dheerna u soo lafagurnay cidii aan xolanayno hadda waxaan bilaabi karnaa xiriir jacayl oo dhab ah waayo waxaan haysanaa ruux aan ku qanacnay oo aan ka helnay dhammaan wixii aan soo baranay ee looga baahnaa hoggaanka qoyska ogow haddii aad iska degdegto oo aad iska bilaabato xiriir jacayl ama qalbigaaga siisay ruux aadan ka soo baaraan degin hubinayna ku qanci doonto noloshaada waxaad halis u tahay inaad ka lunto ama aad ku lunto hawdka nolosha kaasoo adag tahay inaad hesho iftiinkiisa sidaan ognahay waxaa inta badan dhacday inaan iska raacno ruux aan hubin inuu hoggaamin doono ama hoggaamin karo nolosheenna amase aan qalbiga siino annagoo non falanqayn saamaynta qofkaasi nagu yeelan doono nolosheena dambe okay hadda marka waxaan diyaar u nahay inaan bilowno xiriir jacayl oo dhab ah waayo waxaan soo ogaanay wixii nala kaga baahnaa horta okay fiidiyogeenan halkaas ayaan kusoo gabagabeynayaa waxaana fiidiyogeenan fiidiyowga ku xiga alaad uga hadli doonaa jacayl ma jira ayaan ku lafaguri doonaa insha allah mawduucanaas ayaan fiidiyogeenna toddobaad insha allah ku lafaguri doonaa waxaan idinkaga tegayaa intaan fiidiyow kan lamida ku kulmi doono sidaas iyo ammaano allah